ogtahay khariidada halka kaaga muuqata ay tahay xaaraan maqdac ah waa xaaraan maqdac ah sida aad u maqashayba khariidadan ayaa in badan aad ku aragtay social media ama buugaag iyada oo ku sawiran taas macnaheedu waxay noqonaysaa dhulalkii ay weeyasheen deganaayeen abki isir wa ilaa yawmin alxaali ilaa maanta until today aan deganahay waa xaaraan waxaa ku darsataa xataa xeebaha Afrika ugu dheer anagu leenahay iyo carabta xataa ila dhulka carabta ku jirnaa waa xaaraan baynaan deganaano oo ma wada talagelin waxaa ka sii darana hantideeni dhulka ku jirtay iyo badda iyo bariga iyo jawiga waaba xaaraanba oo Soomaali ma lahaan karto oo muslimko dhan baa kula sheer gareynaya ama kula wadaagaya hantidaada saasoo hadalkaas u dhigmaa ku doodaya isirka Soomaaliga inay dawladdu raadinayaan haddaba ma ogtahay inagu Soomaalinimada wax ka weyn inaan haysano waxa ka weynina ay tahay islaamnimaduna ay diiday in dadku ay qowmiyad isku urursadaan in dadku ay qowmiyad dadka kale iskaga xigsadaan okay ma ogtahay Sacuudiga inay mamnuuc ka tahay inuu imaam masjid noqdo qof ajnabiya yani qof non Saudi Saudi ahay يعني إمام كمسجد وين السعودي هذا that's why حتى مكة مدينة وقبلة المسلمين especially مكة الله ما أقلا قف سعودي أهين إنه دتك تشيو ما ركتان سيدا الله يسكوب الطري nationalism بيو nationality ميكس لو الطري details كدينته وايسا أسميين علشان مصلحة ضوضة إني إلى الصبان شعوبتooda inay maran habaabis ku dhicin waxyaalaha Soomaalida garan waayay waxa weeye zamankaaga sida loo nool yahay ku noolow ayagu Soomaalida meel ilo iskarida dadkii iskarid saasoo adduunka dhammaanta la joogo wila waligan waxa noqonaynaa without land without country bala wadan baan noqonaynaa Soomaalida have to have waa diaspora in kalena diyaar bay u tahay inay diaspora noqoto inay haajirto inay qaxdo waxa keenay islaamnimadaada ha u gafin adiga oo ku doodaya casabiyad iyo kala qoqobka ummadda muslimiinta ah oo qariida pointigaas waa sax islaamku ummadahoo dhan uu mideeyay laakiin su'aasha jirta waxa weeye maanta today aw muslimkii maxay sameynayaan maababka ay samaysteen ama u yaala ama loo sameeyay diyaar ma u yihiin inay ka tanaasulaan daraaday aniga muslim ahaan sida adiga u xaaraantimeysay maabkaaga ilaahay ku siiyay dhulka dabiiciga kumayaal sano deganayd ay diyaar ma u yihiin inay maababkooda ay nacladaan ay yiraahdaan waa xaaraan waxba kama jiraan hadii tanaasulshid intee wadan ama intee qof baa diyaar u ah inay tanaasulaan su'aashaas ma isweydiiseen waqti inay isku mid yihiin qowmiyadda iyo qabiilku oo marka aad leedahay aniga oo reer hebel ah iyo marka aad leedahay aniga oo qowmiyad hebel ah ama Soomaali ah waxba isma dhaamaan waa isku mid waa the same farq weyn baa u dhaxeeya qowmiyadda nationalism iyo qabyaaladda wadamaday burburisaa annagana example ah laanu qabiil wadan ma dhiso qabiil qaran ma noqdo laakiin qowmiyadda qaran uu noqdaa dawlad uu noqdaa example waxa ku ah wadamada Carabta wadamada Asia wadamada Afrika iyo wadamada xataa horbarsan oo qariidadan hadii ay ku bedeli lahaayeen qariidada dadka muslimiinta ah ee geeska Afrika jooga qariidadani sax ayay noqon lahayd yaa ku yiri dawladaha East Africa baa muslimku minority buu ka yahay update ugu dambeeyay even mapka dhigtay waxa uu sheegay laakiin update baa jira Tanzania 430 bas baa muslimiina Ethiopia ku xigta 130 baa muslimiina Mozambique 17 and Kenya 10 سأوجدنا ماب كان East Africa ويا ودم أنت مسلم اللي هي طبعا عقاركو ومشورة كام ضدك بدن شالله أنا وحاوية minority بتجر جذود كنا وحاوية ويبيرين ما بتشوفان باصلة أما بيرين community هان iyada oo ay dabada ka riixayaan dad ku doodaya isirka Soomaaliga inay dawladdu raadinayaan Soomaalida waa qowmiyadda waxiidka ah in Africa laba dal leh waxay haystaan Djibouti iyo Soomaaliya uridi Soomaaliya way joogtaa uridi Djibouti way dhisataa sabarka uridi sababka waa xaraabi ka bajira way joogaan uridi okay marka waxa weeye dacwo ila hadam yani wadanka la rabaa in la baabasho asagoo baabashan
baaba'san in la dumiyo asagoo duman miyaa yani khalaas wadankan yuu sii jirin laano min al-asaas ba hadda waxaa lagu leeyahay Soomaaliya ma sii jirayso 10 sano soo socota marka israaci weeye kulligeena diasporada qaxooti iska ahaano forever ilaa wadankan dad kale la wareegaya diinta khalad yaa loo fahmin rasuul sallallahu alayhi wasallam waagi islaamku xataa wuu cusbaa okay dacwa al-islaam waxay ahayd sirriya 3 sano sir ahayd markii jahri laga dhigayna saxaabada lagu dhibay dhulka la u haajireen fa adiga waxyaalo badan baa waxay diintan ka fahmeen waxyaalo badan baa waxay jirta aan garan karno حتى رسول الله عليه وسلم هجرتي مركو هذا مدينة منورة قاعدة شوكتي يهود بجوي كريستيان بجوكتي كوميونيتي أهان سيدي مسلم قدت كاسولن ولا نولاده حتى وسؤالها بضن وحتى خربي مركي يكسم أيام دراسات وحياله بضن وبصوبحة ومي بشرعيه حتى ما أنت كوصل أيام وحكوصل هري مكة دعوة وحي أهيد سر لأنه تدكو ويرايين وانا قفكي لأركان ولا الدلي تشري بدنكود اوكي الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث وحكى شيء بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا يعني الاسلام كنا قبسي بو هدنا قبسي بو نقنيا اديga marka in kaliga gacmo kaligeed ma saabin karto hadii maanta caalam islaam oo dhan wadamadooda dhisatay qof walba Soomaali riyo u tahay alla ma Masar tago alla ma Sacuudi ma joogo alla ma Dubai guri ka gato alla Turkiga alla ayaga wadamadooda dhistay wadamada sistemada lagu joogay ku dhiseen laano awood u malay wax ka weyn ka tan qaadi karaan adi marka Soomaaliyo ma waxa ku fakaraysaa nidaamka caalamiga oo dhan inay kala la dagaashay saasay noqonaysaa macnaheeda nidaamkan caalamiga u joogo dad xoog loo iskaashado economy culture adduun beerta iyo siyaasi adi marka nidaamka caalamiga maanta joogo min 100 sano ka hor ee adduun weynaha dhigteen markuu muslimka daciifay ma adi kaliya baa tirtiri kara mise adiga waxa rabtaa ma aniga waa ka soo horjeeda wadankayga inuu dal noqdo laakiin anigu Yurub baan qaxooti ku noqonaya Mareykan baa ku noolaan karaa waa ka wadamada kale diaspora ka tahay sharciyada hadayna bedelaan waa lagu soo ciriyaa wadankayga marka tagtidna wadankaaga umada kale la wareegay adaa dib lagu guumeystay I wish waxaan rajaynayaa Soomaaliya حتى دي مدحوينه وأقولان كبر أبا دبر at least prime minister كبر كنت جابي at least prime minister دمر كدقة وحياله وين بس بدري لا because فرحاش بدو كدوي دالين